ما جيران بيرلي واوين beeraley waaweyn waa jiraan laakiinse ma badno inta badan sababtoo ah dadka ganacsatada ah oo ilaahay hantida siiyay inta beeraha fahansan horta waa in yar sidaas darteed intaasna marka waxa waaye beero way tabcaan oo way sameeyaan oo way leeyihiin marka ayagana de maadaama capacity dhaqaale ay leeyihiin naftirkoodu sidii wax loogu baahnaa ma soo saaraan waa jiraan laakiin sidii wax loogu baahnaa ay qudhoodu ma soo saaraan sababtoo ah ee duruufta oo dalka ka jirta in badan waxa moodaa inay saameynayso kow waa noo soo socota su'aashaas marka caqabadaha haysta maxay yihiin beeraleydaas waaweyn caqabadaha haysta oo inay wax badan soo saaraan ka hortaagan maxay caqabadaha haysta ayagoo haysta qalabkii ayagoo haysto hantidii ayagoo wax walba heli kara haddana inay wax soo saari waayaan kow horta waxaa jirto in boos waxaa la dhahaa qofka saxda waa inuu ka shaqeeyaa booskiisa saxda markaasaa waxaa imaanayo natiijo sax ah beeraleydaanu hantiyi leeyihiin oo sababtoo ayaga dhaqaale haystaan beertii waa maalgashan karaan laakiin dadkii injineerada ahaa lahaa xirfadda beeraha lahaa aqoonta agriculture-ka la rabay in ay inta hantida la geliyo ayaga ay maaragtay ay ku bixiyaan intuu qarash beerta ku bixiyay in la mida inuu ku bixiyo qofkii wax soo saaray ma sababtaas darteed waxa wax ugu qaldamaan qoliyahaas ganacsatada ah ama beeraha waaweyn leh oo ayaga beeraha waaweyn tabcado wax ugu qaldamaan wax uu sameyn karo sameyn waayo sidaas darteed ya meeshu gaari lahaa waxa ka hor istaagay management xumada oo qofkaas asaga abuuray oo ah waxay ahayd markuu wixii helay khibradii helay qof ku haboon inuu ku siiyo wax ku haboon deedna ay imaadaan production sax ah oo wanaagsan oo sareeya markaas ayuu iman karaa sababtoo qofka aqoonta leh wuxuu garan karaa dhulkan in la beeri karo dhulkan in la beeri karin dhulkan in karoobkan hadda ku haboon yahay ama dalagan ku haboon yahay inuusan ku habooneen qaabka loo dhigaayo systemkoo dhan waxaa hayo qofkii aqoonta kana fikirayo riskiga iman karo managementigeedana laga raba asaga kadibna sidaas darteed xitaa qofkaas asaga ah ma ahan in la dhaho shaqaale noqo asoo waliba aqoonti leh sababtoo ah waxaa la dhahaa qofka adiga bersin waxaa soo saartay sintii haddaa ku leedahay ninkii aqoonna waa leeyahay xirfadii waa leeyahay waa injineer nin soo bartay beeraha waaye haddii la yidhaahdo percentage-na waa leedahay mushaarkaasna waa leedahay qofku wuxuu shaqaynayaa si hagarnaana meeshiina waxaa ka imaanayo production sax ah oo qofkaasu qalabkii ee agabkuu geliyey jawaabteeda waa hela waxaa inta badan soo bilowday beeraha dedan oo de greenhouse-ka la yiraahdo xillimay Soomaaliya ku soo bilowday xillidii ugu horeysay imaadeen iyo cidda keentay oo de dadkan inay sameystaan laga arkay yaa weey kulli sida haddaan jirta beerahan waxay bilowdeen 2012 2013 meelahaas eriyadaas ay soo bilowdeen beeraha dadan markaas soo bilowdeen qoladii ugu horeysay oo keentana dabcan jaamacadda Zamzam ay ahayd oo ayada bilowday wax ugu horeeyay ma jirin xaqiijisayna in wax laga soo saari karo wax soo saar xoogan oo fiican uu leeyahay xilligaas ayna soo bilowdeen dadkaasaana bilaabay jaamacaddaas ugu horeysay wax bilaabo dhanka greenhouse okay waa maasanta beeraha dadani marka maadaama adigu dadkii ka shaqeeyay kamid tahay ma ku haboon yihiin in wadankanaga la keeno ama de lagu shaqaaleyso ama lagu apply gareeyo ma ku haboon yihiin beeraha dadan kulli horta waa dhul yar waa square meters waaye oo yar la xadidayo climate-ka iyo cimilada uu karoobkaani ku korayo asagoo la siinayo proper climate oo sax ah protectionkii ama ka hortagiina minimization macnaha wuxuu yareynayaa weedkii ma jirayo sababtoo waa under control waaye hooskii waa la controlaya
cudurradii waa la kontroolaya nafaqadii u baahnaa waa la siinaya marka meeshaas waa meel yar oo kooban oo la xadidi karo maadaama la xadidi karo waxa imaanayso in lagu dadaalo number sax ah in laga soo saaro maadaama qaroobkaanu cimilo dhameystiran la siiri waterkina loo qiyaasay nafaqadii loo qiyaasay protectionkii rabana la siiyay production marka ayaa imaanayo oo aan ka imaanaynin intaas in lamid ah oo dhanka open field ah sababtoo ah taasu waxa saameynaysa climate-kii insect-kii cimiladii aw in badan waxay sameynayaan production-kii inay ku ridaan reduce ay yareeyaan laakiin kan wixii soo gala na waa laga remove garan karaa marka taasa marka waxay keenaysaa in dhankaasi loo bato ayadoo waxyaabaha keenayo in loo batana hadda waxaa ka mid ah security-ga maadaama in wax la beerana la rabo dhulkii beeraha lahaan xoogaa ama ha noqoto in infrastructure-kii halaysan yahay ama ha noqoto in la gaaraba inay caqabadeedu culus tahay ama in taxation-kii iyo canshuurihii isdabamarkii waxaasoo dhan inay qaali yihiin marka qofkan gurigiisii inuu ku habaysto dhowr greenhouse oo dhowr mitir uu leeyahay uu wax soo saar ka sameeyo hal greenhouse inuu qofka ka sameeyo oo qajaar ah 6,000 oo inuu soo saaro oo 6,000 oo kg inuu soo saaro uuna ku soo saaro within 3 months ama 4 months dhexdooda afar bilood uu ku soo saaro ama hadba greenhouse-ka numberkay kala yihiin ku xiran tahay iyo production-ka ay soo saarayaan marka waxay ku tirsanaysaa in meeshaas karoobkan lagu beerayna waa karoob aan cimilada kale u adkeysan karin inta badan cimiladu way dhib ku tahay taas marka waxay ku tirsanaysaa dhankan beerahan oo dadan ayagu inay muhiimad gaar ah u leeyihiin xaaladan uu insectiga Soomaaliga hadda zaid yahay oo insectiga ku badan yahay Soomaaliya marka waa ku habooyin waa ku habooyin oo lagu beeri okay dalagyada inta badan lagu beeraa maxaa weeye adoo magac dhabaysid dalagyada inta badan lagu beeraa waa saan sheegnayba dalagyada inta badan aan u adkeysan karin cimilada waxa kamid ah qajaarka kale to cimilada uma adkeysan kara inta badan waa very sensitive waxaan anagu raadinayno waxa waaye natiijada wax laga raadinayo production-ka waxa waaye si mirto hadii dhaawac gaaro ama uu insect haleeyo number production-kaadi kamid ah maqan ay ka go'anta ay ka jaran tahay saas darteed mirtu waa in la ilaaliyaa marka karoobku marka qajaarku waa very insectiga inuu dilaaciyo dhax galana waa u fududahay sababtoo aad u jilicsan asaga dhan biyo waay koow markaas ay horto greenhouse-ku oo okay ku yahay waxyaabahan vegetables-ka yar yarka oo qudaaraha ahana oo cagaaran ayagana aad ay muhiim ugu yihiin in lagu beero qudaartan cagaaran oo ayada nasirkeedu insectiga aad oo dhibaateeyo sida aad ugu fiican tahay koostada kabsarta waxyaabaha banaankan oo lagu beeri karaa laakiin in gudaha lagu beero yaanyada kale to inta badan cudurradeedana waa adag yihiin cudurradeedu waa badan yihiin badana marka areas close-ka ah oo control-keeda uu saxan yahay ayaa aad ugu fiican yaanyada kale to lagu beeraa qajaarka lagu beeraa batiiqa lagu beeraa sometimes babayga taa lagu beeri karaa hadii oo adiga ah haysatid large greenhouse oo weyn hadaa haysatid waa ku beeri kartaa babayga waa waxyaaba ugu fiican sababtoo babayga hadda waa afgooye inta badan waxa dhibo bahal yiraahdo millibag inta badan beeraleyda babayga waa ku rafaadsan yihiin malabashada aad iyo u dhibto marka way dumisa marka waaba in oo dhankaas bal intriko tijaabo lagu sameeyo greenhouse oo weyn oo babay in la sameeyo waa tijaabo kale oo fiican ayada inkastoo hadda aan arkin qolaha hadda babay ku beerta aad iyo marka ma ka qayb qaadan karaan wax soo saarka ama kororka wax soo saarka dalka beerahan dadan waa ka qayb qaadan karaan aad iyo aad sababtoo hadda suuqyada marka fiirisid waxa ku soo badanaya qudaarta greenhouse-ka laga soo guro aad ay u badan tahay waa la yaqaanaa qudaarta greenhouse-ka iyo qudaarta beeraleyda la kala dhahaa marka production-ka suuqa aad ay u gataan way quruxsan tahay xoogaa maadaama la ilaaliyay wax la koolkoolay iyo wax banaanka iska yaalin waa kala duwan yihiin marka saas darteed xoogaa suuqana waa magac waa kala yihiin oo ilaan adiga waxa ku hagaay market-ka waay market-kana aada marka dadka wax ku beerta beeraha dadan caqabadaha ay la kulmaan bal wax nooga sheeg dadka beeraha dadan wax ku beerta horta caqabad ayuu ku dhowdo ay jirto sababtoo ah koo horta meeshii cost oo waxa galayo oo xoog leh aad iyo barihi waa qaali
wixii qalabkii caadiga la dhisay naftirkiisa gurigan dadan in la dhiso naftirkiisa process loo maraa asan naftirkiisa waa qaali lacag waxa ku baxaysa qaali ah magaalada waa naqaana biyaha mitir kuuba lagu xisaabiyaa ciidan firkeeda waa qaali kale intaas iyadoo qaali ay tahay haddana ciidii waxa laga soo raraa wax la yiraahdo afguya la keena inta la keena ciidaas laba la kabay kala tahay ciid Sunday iyo ciid waxa la isku daray kaliya ah naftirkeeda hadii oo muddo la isticmaaloon ayaga naftirkeeda aan laga fikirin in ciidaas mar waliba gacanta lagu hayo oo de la ignore gareeyo ayadana ku ignore gareynaysa macnaha hada adigu aadan aqoonin ayadana kuma taqaan ay wax ma soo saarayso hada adiga ka shaqeyn marka ciidaas naftirkeedana waa very macnaha marna dhanna waa u fiicanto magaaladii u dhowdahay dhankii kalena xaaladeedu waa in aad loo adkeeyaa oo laga fikiraa ciidanteeda caqabad gooni yeelanaysa sababtoo inta badan waxa sensitive u tahay nematodes badana waa ku imaada geedka mar haduu galana de automatically production ka filaysi iyo macalgeedkii waa eber way marka saas darteed caqabadahaasu waa caqabada jiro dadka marka ayaga ku dhex jira ama leh greenhouseska waxay u badan yihiin dad hanti haysta ama heli kara macnaha lacagtaas ama dad soo urursaday oo rabo inay waxaan ka macaashaan oo isla niyo meeshaan lacag lagu sheegay hal galo dadkaas marka inta badan qofka ganacsadaha kama fakaro marka lacagtii meesha uu galiyay number lacageeda ka galay laakiin kama fakaro qofkii ku haboona inuu ka shaqaaleysiyo qofkii saxda ah ma laga shaqaaleysiyo qof yaqaan laga ma shaqaaleysiyo inta badan waxa imaada marka ninkii inuu wareero productionkii ibar noqdo wixii la filay iyo xisaabihii la isku dhuftanay inay sax noqon waayeen taas maxay keenay marka qofkii inuu ka dido ka cararo waana wax uu asaga sabab marka loo fiiriyo qof yaqaano managementiga haduu dhiibi lahaa inay maybe ay wax keento wal riyo marka caqabadahaas oo la isku dardaray ayaguna meel bay u yaalaan qolada beeris ku beerta guryaha xiran wax